السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسارة الدفاع أي ودن كروشكا waxay maanta oo sabti ah ku dhawaaqday in ay markii ugu horeysay taariikhdeeda iyo waliba dagaalka Ukraine ay ka wado u adeegsatay gantaalaha loo yaqaano Kinzhal missiles ee hypersonic ah si ay u burburiyaan bakhaaro lagu keydinayay hubka iyo saanada military ee kalaba kuwaasi oo dhulka hoostiisa ku yaalay deegaamo ka tirsan galbeedka dalkaasi Ukraine. taliska gaashaandhigga dalka Ruushka ayaa sheegay in ay maanta iyo shalay gelinkeedii dambe gantaalahan ku burburiyeen dhowr xarumood oo dhulka hoostiisa ah oo ay ciidamada waddanka Ukraine ku kaydsanayeen hub iyo saanad military oo kale iyadoo oo gabi ahaanba goobahaasi la burburiyay. gantaalahan casriga ah ee loo yaqaano Kinzhal oo lagu naanayso tooriidii ama mididii Ruushka oo si weyn loo xakameyn karo yoolalka lagu burburiyaana si dhib yar loogu adeegsado qalab tiknoolaji oo heerkoodu sareeyo ayaa la sheegaa in aanay qaban karin hababka difaaca ee ciidamada Ukraine, sidaas darteed uu khasaare weyn u geystay. wakaaladda wararka Ruushka ee lagu magacaabo Ray Novosti ayaa ku warantay in ay tahay markii ugu horeysay oo gantaal noocan ah loo adeegsado dagaalka Ukraine. weerarkaasina uu imanayo kadib markii ciidamada Ruushku 24 saacadood ee ugu dambeeyay ay dardargeliyeen weerarada duqeymaha ah ee ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha muhiimka ah ee ay duqeynayaan. wakaaladdu waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa warbixin uu sii daayay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka in ay burburiyeen ciidamada Ruushku makhaasiin weyn oo dhulka hoostiisa ku yaalay oo lagu kaydin jiray gantaalaha iyo diyaaradaha oo ku yaala gobolka Ivano-Frankivsk ee dalka Ukraine. iyadoo loo adeegsanaya gantaalkan casriga ah oo markii ugu horeysay taariikhda Ruushku dagaal ku galayo tan iyo markii uu soo saaray dhowr sano ka hor, gaar ahaan horaantii sanadkii 2018. wasaaradda gaashaandhigga Ruushku waxay intaasi ku dartay inay sidoo kale gantaalkan lagu magacaabo Kinzhal ku burburiyeen xarumaha isgaarsiinta iyo sahanka raadiyaasha ee ciidamada Ukraine ee ku dhow magaalada dekedda ah ee Odessa, iyadoo la adeegsanayo nidaamka gantaaladan oo laga soo ganayay saldhigyo aanay shaacin goobta ay ku yaalaan. gantaalaha Kinzhal hypersonic ballistic missiles iyo Zircon cruise missiles waxay ka tirsan yihiin noocyo cusub oo hub ah oo uu sameeyay Ruushku, waxaana madaxweyne Vladimir Putin uu sheegay inay yihiin mid aan loo dulqaadan karin si dhib yarna ilbiriqsiyo gudahood ku burburin kara ahdaafta loo calaamadeeyay. tijaabooyin guul leh ayaa lagu sameeyay gantaalada Kinzhal sanadkii 2018 horaantiisii, xilligaasi oo ay ku garaaceen dhammaan bartilmaameedyadooda masaafo dhan in ka badan 1200 oo kiiloomitir sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushku. waqtigaasi la tijaabinayay diyaaradaha dagaalka ee MiG-31 ayaa lagu rakibay gantaalada noocan ah, waxaana sidoo kale laga soo ridi karaa nidaamyo kale oo dhinaca maraakiibta iyo gaadiidka dagaalka ah iyadoo oo ay ku xidhan tahay hadba xaaladda weerarkaasi loo adeegsanaya gantaalahaasi. xogtani waxa ay tibaaxaysaa in saraakiisha reer galbeedku ay daraasaynayaan awoodda gantaalkan maanta lagu waxyeeleeyay Ukraine oo ka mid ah hubabka ugu casrisan waqtigan ee uu Ruushku haysto. Ruushka ayaa u samaystay gantaalahan bartilmaameedka goobaha la duqeynayo iyaga oo awood u leh in ay ka baxsadaan nidaamka difaaca hawada sida gaashaanka gantaalaha Mareykanka iyo waliba Yurub. waxa kale oo xusid mudan awoodda qaraxa ah ee uu sameeyay gantaalkani oo burburin karta masaafo aad u ballaaran, taasi oo keenaysa in saldhigyada dhulka hoostiisa laga qoday uu si dhib yar u burburin karo.